السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوينك قيسك يا حنونك بدن بين مالمها كدح جرنا هواني دارنوا هواني ولكن يحاسك وقبون كلا كلان تيارين فتشعيسا وينوبا هنهاين إنو برشادة وصوبان دقنو هواني داري وحي تري وحانا هاي قبار قرابة وحان لنولا هاي ولالكي وحانا aan ku soo guriga noqday bay tiri guriga walaalkay reer ahaan waxaan ka soo jeedaa bay tiri qoys saboola oo noloshoodu ay liidato isla laakiin walaalkay waa nin dhaqan oo hanti fiican haysta hantidaa uu haysta wuu naga soomiyay aniga iyo hooyadayba walaalkay isku hooyaanu nahay laakiin ma nihiin isku aabe aniga waa la guursaday bay tiri ninkii baanu kala tagnay waxaan ku soo eertay markaas guriga walaalkay maadaama oo cid kale oo markaas aan marti u noqon karaa aanay magaalada joogin hooyadayna ay tahay qof dan yara oo jeebkeedu aanay waxba ku jirin isaga ayaa waxa uu tuuraabay tiraama uu diraa waxaan waxba ka gaadhayn ama aan meel kaga dhacaynin nolosheeduna way hoosaysaa walaalkay markii aan u imi waxa uu igula kacay bay tiri arrin aad u naxdin badan oo markaa qalbigaygii bedeshay bay tiri ninkaasi haweenayda uu qabo way u boqoran tahay way u caleema saaran tahay xilli kastana uu calan wallaynayaa bay tiri waxa uu markaas igu sameeyaa hadallo qadaf ah oo aan u qaadan waayay marka uu iga dhaqaaqana aan ooyo bay tiraan hoos u ooyo hadalladaas oo naagta uu qabo iyadoo ay maqlaysa ayuu odhanayaa bay tiri nacasnimo iyo doqonnimo ayaa gurigaagii kaa soo dumisay waxaan waxba isku falayn baa tahay doqon baa tahay qof bilaa damiira baa tahay gurigayga ii joogi maysid halkan ii fadhiyi maysid ninkii ku soo furay nacasnimuu kuu soo furay hadallo noocaasa iyo kuwo kale oo aanan iminka sheegi karayn bay tiri ayuu igu odhanayaa waa ninkii aan walaalka ka dhigtay ee gurigiisaan imi ee aan ku soo hirtay ee ninkay xumeeyey ee noloshaydii soo baabi'iyey aan kaga soo eertay ee aan miciin soo biday ee walaalnimada iyo dhiigga aan u soo doontay ee aan gabboodka ka soo dhigtay ayaa arrinta noocaasa xilli kasta igula kacaya bay tiri waxaan xilliyada qaar aan dareemaa bay tiri in noloshayda oo dhan aanay dhinacna ii roonayn marmar noloshu waxay igu kaliiftaa bay tiri ninkii ii dili jiray ee xumaan fara badan ii geystay ee aanu kala tagnay ee carruurta iga qaatay inaan ku laabto isaga oo aan door bidaya bay tiro kanaan wada dhalannay aan u malaynaya inuu igaga roonaanayaba marka kani hadallada uu igu samaynayo iyo sida uu naagta kale iigu horbahdilayo markaan arkay in arrintaasi aan isiraahdo kii hore ku laabo marna waxaan go'aan qaataa bay tiri inaan ahaado kuwa markaas noloshooda bannaanka soo dhiga ama dumarka xumaada ee jidhkooda iibiya inaan noqdo mararka qaar nolosha inaan isdhaafiyo ayaa igu soo dhacda xaalado badan oo aad iyo aad u khatar badan ayaa maskaxdayda ku soo dhaca ayay tiri haweenaydan oo qisada aadka u xanuunka badan inala sii wadaagaysa ayaa waxay tiri nolosha imika aan ku jiro waa nolol aad iyo aad u halis badan waxaanay keeni kartaa bay tiri inaan naftayda ka tuuro meel aad u khatar badan waxay tiri dhinaca dhaqaalaha ninka aan walaalaha nahay waa nin dhisan dhaqaale ahaan laakiin iska daa inuu wax isiiyo oo uu xataa moobilka wax iigu shubo oo uu wax ii soo diro oo uu isiraahdo walaashaay oo qof weyne ayaa guriga joogta cid kalena ma haysato oo taageerta dhaqaale ahaan waana qof wax u baahan kara dumarkuna way iska xaalado iyo hawlo badan yihiin ee hadday noqoto wax markaa ay ku soo shoobin karaysato ama waxay nafteeda u isticmaasho ama waxay jidhkeeda ay u xidhato ama waxay markaas ay nolosheeda ku yara hagaajisato inuu ii garta iska daayo afxumadaas iyo dhibaatooyinkaas ayuu igu hayaa haweenayda uu qaboon dhowr jeer uga dacwooday waxay markiiba afka igaga soo boodaa ninkani waa nin boqor oo wanaagsan
adigu carada iska saar oo dhibaatada iska saar oo cuqdada iska saar marka uu hadallada xunxun igu leeyahayna qofiga waabinayso odhanaysa ma walaashaaba saa ula hadlaysaa maxaa kugu dhacay xaaladaada maxaa ka qaldan ma qofta walaalaatiina martida inoo gurigaaga joogta ayaa sidaa u dhibaataynaysaa odhan mayso ee qosol iyo dhoolacatayn iyo gudigasha iyo dibradhaacsi ayaa igu haysaabay tiri haweenaydaasina tala ayaan kaaga baahanahay bay tiri aad bay u mahadsan tahay haweenaydaasi haddaynu taladeeda ku soo dhowaano inay wax sheegato qofku wax sheegto oo dhibaatada markaas haysata uu banaanka u soo saaro caafimaadku aad iyo aad buu taageerayaa qofku hadduu cabursanaado oo dhibaatadu qofku dhinac kastaba ha ka soo gaadho ama qoyskiisa ha ka soo gaadho ama nolosha ha ka soo gaadho ama naftiisa ha ka soo gaadho ama xanuun ha ka soo gaadho qofku haddii ay dhibaato haysato inuu sheegto oo meelaha ku habboon uu sheegto iyo cidda ay qusayso waa mid caafimaadku aad iyo aad u soo dhaweynayo haddii kale laakiin waxaad qarsataa way ku qarsadaan bay Soomaalidu tiraahdaa carabtuna waxay tiraahdaa kasratul masaas tudribu al-ihsaas wixii aad badsataaba way ku badsadaan markaas haweeneyda waxa kula talin lahaa laba arrimood ayuun baan taladeeda marka koowaad aan ugu soo ururinayaa arinta koowaad aan talada ugu soo ururinayaa waxay tahay haddii xaaladda noocaasa qofka isku dhiiga ahaydeen aad isku dheecaanka ahaydeen dhalashadu ay idinka dhaxaysay uu kugula kacay horta marka koowaad waa arrin tacsideeda leh oo murugadeeda leh oo tiraanyadeeda leh ee qalbigaaga ilaahay wanaag ha geliyo xumaanta ninkaas awlaatiinu kugu samaynayana samir iyo dulqaad u yeelo isla markaana waxa aad tustaa si nasteex ku jirto in hadalladani xilliyada qaar ay xaganayaan oo ay dhibaataynayaan qalbigaaga oo qiso hore aynu ka qisoonnay oo aynu tala ka bixinaynay ayaa waxaynu niri ragga waxaad moodaa qaarkood inay wax ku leeyihiin hadalka dadka qaarna iyo ragga qaarna garaad iyo garasho ay ku kartaan qofkani hadalkani inuu dhibaataynayo ayaa ilaahay siiyey marka horta inaad maadaama oo uu walaalkaa yahay oo aad la hadli karto inaad tiraahdo walaal xaaladdan aad igula dhaqmaysaa waa xaalad jirkaygu uu diidayo waanad u aamusin oo si caadi adigoo ugu sheegaya laakiin aanay arrintu noqonaynin inaad adiguna si cadhale aad ugu jawaabto marka uu hadallada kugula hadlayo kuwa la mid ah haddii aad ku tiraahdo xaliman maayo laakiin haddaad u gogol fadhiisato oo waqti uu degan yahay aad u tagto oo aad tiraahdo haddii aad walaalaan dhibaato kugu hayo oo gurigaagan aan joogaa ay dib kugu noqotay dee guriga waa kaaga tegayaa laakiin sidan aad samaynaysaa si habboon maaha oo si kale aad ugu caqli celiso waa mid aan kugula talin lahaa waxaan rajaynayaa arrintaa inuu ka garaabo isla markaana inuu dhibaatada uu kugu hayo uu kaa daayo dhinaca kale haddii qoyskaagii kaa dumay iyo odaygii aad kala tagteen ay inuu raja kaaga jirto ama aad isleedahay qaladkii dhacay dhinacaaga ayaa uu badnaa inaad arrintaas aad ka soo noqoto oo reerkaagii iyo noloshaadii iyo ubadkaagii iyo odaygaagii inaad ku laabato oo reerkaagii aad ugu dhisato ku laabashada ninka ayaa marka uu haweeneyda furo soo celinta xaaska iyo inuu gurigii dib u yagleelo ninka ayay mas'uuliyadaasi saarantay laakiin mararka qaar waxa dhaca qoysku marka uu dumo in qaladka haweeneydu ay lahayd qaladaad fara badan marka haddii qaladaadka ay ka garawdo oo ninkii uu arka qaladkii inay ka soo laabatay haweeneydii inuu reerkii dib u dhismo oo dib la isugu yimaado oo carruurtiina aabbiyo hooyo ay helaan labada arrimood ayuunbaan anigu taladayda kugu soo ururinayaa bulshada kale ee qisadaada maqashada wixii talay ku soo siiyaan waad ka qaadan doontaa dadka ahlu caqliga ee ahlu cilmiga ee aad isleedahay tala iyo tusaale ayay kugu biirinayaan xaaladaada u soo bandhig waxaan kuu rajaynayaa farxad iyo nolol qurux badan iyo nolol aan muruga iyo ciilkaanbi iyo ciil lahayn intaasaan kugu soo ururinayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.